sayidari baa ka mid ahaa madaxweynaha hadda talada haya muuse biixi baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maxamuud xaashi waxaa ka mid ahaa maxamed cabdullaahi omar oo markii dambe noqday wasiirka arrimaha dibadda waxaa ka mid ahaa xirsi oo markii noqday wasiirka madaxtooyada waxaa ka mid ahaa marwada madaxweynaha oo iyadana goobjoog ahayd rag badan oo saxaafadda ka socday sida farxaan xaaji cali oo kaleeto iyo milkiilaha howlkeed jiito nasiib darro uu ka soo degi karo waayay Soomaaliya waxay ahayd inuu dhammaadkii sanadkii hore uu berbera soo gaadho hase yeeshee Jabuuti waa ixtiraamaya dad shaqaystay oo madaxweyne fiican leh siyaasaddiisa iyo xusuudiisa u dhaqayo waa ku ixtiraamaya adeero waa la ku mahadsan yahay laakiin inay baddaydu soo ahaato berberi nooca ahaato inagoo le berbera dee kuma faraxsan adeer waa kuma faraxsan ilaa heer bay gaarsiisantay si dawladuhu u ilaaliyaan markay suuqa xorta ka shaqeeyaan maaha oo keliya in laga hortegayo in qof loo xidho ama koox loo xidho ama ganacsi loo xidho adeeg ama nooc ganacsi wax soo saar ganacsi xitaa wax mamnuuca in cid hal adeeg wada bixinaysa isku biirto Jabuutina waa la geeyay markaan waan tagay wax la geeyay guri kaloo kala leeg oo qolo walba meesheedu ku xiran tahay Ethiopia bay ugu xiran tahay Afrikada kale bay ugu soo xiran tahay Suudaan bay ugu soo xiran tahay yaani mid walba khadka uu leeyahay ayaa la qolka aniga waxa la samid banaan maaga soo xol ugu xiran oo waa kan waa kii Somaliland iyo fiber optic goodu safarada aanu ku baadigoobayno caddaymaha iyo shakhsiyaadka xaqiiqada xogtani khusayso oo isla raadintooda iyo meelaha ay ku kala nool yihiin waqti badan naga qaadatay aan horta idinla wadaago taariikhda iyo meertada isgaarsiinta fiber optic ee Soomaaliland sidaan hore u soo sheegnay kadib kolkii la go'aansaday in Afrika dalalkaasi ka midka ah la gaarsiiyo adeegga internetka badda hoos mara waxaa samaysmay in adeeggaasi ay ku bahoobaan sharaa'ig caalami ah kuwaasi oo ku midaysan ama ku bahoobay magaca East ama East Africa Submarine System shirkadda loogu yeedho magaceeda Telkom waxay ka mid ahayd shirkadii ku bahoobay East ee xadhkahaasi fiber optic u qoondeeyay in magaalada berbera noqoto stationka ama saldhigga fiber optic ee bariga Afrika dhammaadkii sanadkii 2004 ayaa shirkaddii Telkom bilowday qorshahaasi lagu doonayay in Somaliland oo leh xeeb dheer laga hirgeliyo isgaarsiinta fiber optic ayna xarun isgaarsiineed ama xarunta ICT-ga ay u noqoto magaalo xeebeedda berbera taasi waxay ahayd fursad weyn oo qiimo iyo ahmiyad xooggan u samaynaysay Somaliland guud ahaanteed gaar ahaanna waxay magaalo xeebeedda berbera ka dhigaysay xarun weyn oo wax ku ool u ah horumarka isgaarsiinta ganacsiga iyo xiriirka Afrika iyo adduunyadaba si dhowna u caawinaysay tayaynta iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaale iyo ganacsiga Somaliland xilligaasi xukuumaddii ka arriminaysay Somaliland oo madaxweyne ka ah Daahir Rayaale Kaahin ayaa soo dhaweeyay fikirkaasi shirkadda Telkom ee ka mid ahayd sharaa'igga East isagoo u arkayay faa'iido mug leh oo u soo hooyatay Somaliland sidaas darteedna ogolaansho buuxa oo kalsooni leh ku ogolaaday in Telkom ay hawshaasi fuliso iyadoon wax koota ah loogu xidhin adeeggaasi iyadoo laga duulayo dastuurka Somaliland oo kootada xaaraantimeeyay
sidaasi ayaa shirkaddii dalcom ku bilowday mashruucii hirgelinta barnaamijka fiber optic waxayna waday ilaa iyo bartamihii sannadkii 2010 halkaasi goortay maraysay ayaa waxaa ka hor yimi caqabadihii caqliga fayoobi aanu qaadan karin kolka dib loo raaco taasoo qayb ka ah waxa aynu ugu yeedhnay dagaalkii dhaqaale iyo siyaasadeed ee berbera ka dhigay bogcad ayaan daran oo laga hiiliyey waxaannu ugu horrayn raadinay sharciyaddii madaxweyne daahir riyaale somalilan ugu oggolaaday in wakhtigaasi adeegga isgaadhsiinta fiber optic u ka hana qaado tani waa ruqsaddii madaxweyne riyaale siiyey shirkaddii delcom oo sida kuu muuqata ay ku xusan tahay magaceeda somalilan delcom tan kale waa warqaddii wasaaradda boosaha iyo isgaadhsiinta oo uu ku saxeexan yahay wasiirkii boosaha iyo isgaadhsiinta ee wakhtigaasi mudane aadami kuwanina waa waraaqihii cashuuraha shirkaddaasi ku bixisay helitaanka caddaymahaasi kadib waxaannu tagnay dhismaha isteeshankii berbera laga dhisay ee shirkaddaasi doonaysay inuu noqdo midka ugu weyn bariga afrika inkastoo dhismuhu leeyahay qaybo undergarowna ama dhulka hoostiisa oo aysan noo suurtagelin inaannu gudaha u gallo haddana cagta waxaannu soo dhignay halkuu kaga yaallo xeebta berbera intaasi kadib waxaannu gudagallay raadinta madaxii ugu sarreeyey shirkaddii delcom somalilan maxamed axmed jaamac waxaan raadinay taleefankiisii kolkaannu la samaynay xidhiidh ee aannu khadka taleefanka ku hellay wuxuuna noo sheegay inuu 3 maalmood kadib magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya imaan doono isla markaana joogi doono iyada lafteeda wakhti aad u kooban inaannu muqdisho ugu nimaadno ayaannu door bidnay waa habeennimo abbaara 12 barhkii waxaa suurta galay inaannu hello kana qaadno waraysigan mas-uulkii aannu maalmaha badan raadinayno waraysigan oo isagu sal u ah qaabkii ay ku suurta gashay in berbera laga baajiyo fursaddii u horraysay ee ka dhigi lahayd aqalkii tiknoolajiyadda geeska afrika sida aan xasuusto waxaa iigu dhalatay 2004 markii aan qorsheeyey inaan dhiso 2 maxadadood oo qaybiya internetka kaas oo ugu talagalay maxadada koowaad inay noqoto magaalada berbera mudday qaadatay in fikirkaas loo bedelo ama la dhaqangeliyo waayo ficil ahaantiisu ma sahlanayn mid la dhiso tiknoolajiyadoo qaali ahayd shaqada loo baahnaa oo mid aad u culus ahayd maalgelinta loo baahnaa oo mid iyadana aan aad u sahlanayn ahayd marka berbera waan bilaabay shaqadeedii 2004 akhirkiina qorsheygu wuxuu ahaa in 2010 aan dhammaystiro isaga uu ay shaqada berbera ay ka dhiman tahay muddo 60 casha dhismihii stationka waa la dhammaystiray oo markaa wuxuu ku dhowaa ama gabaabsiba u ahaa dhammaystirkiisa qalabkii la dhigi lahaa oo dhan waxay soo saarnaayeen maraakiibtii lagu soo raray waxaana la sugayay bilo gudahood 60 cisho gudahood inay hawshaa ku dhammaato nasiib darro siilaanyo 2 usbuuc dooran oo aan weli xilkii la wareegin ayaa habeen gurigiisa noogu yeeray na weydiistayna aniga iyo nimankii caddaanka ahaa ee shaqada ila waday in aan fadhi la qaadano wuxuuna noo sheegay arinta uu noogu yeeray inay tahay xilli kala guur ah oo dawladdii horena ay xilka wareejinayso dawladda cusubna ay xilka la wareegi doonto wuxuu naga codsaday in aan hakad gelino
mashruuca aan wadno muddadan kala guurka macno waa noo samayn weyday inaanu joojino shaqo socota dood dheer ayaanu la galnay madaxweynaha gurigiisa annagoo fadhina waxaan u sheegnay horumarka iyo faa'iidada aanu doonayno inaan dalka kusoo kordhinayno waxaan u sheegnay sida aan rabno mujtamacan inaan wax badan uga bedelno waxaan u sheegnay tiknolojiyadda aan keenayno waxaan u sheegnay hay-adaha aan la kaashanayno maalgelinta intaas la eg ee aan waddanka keenayno waxaan u sheegnay shaqo abuurka iyo aakhirkii shaqadan markaanu dhammaystirno masaalixda weyn ee shacabka reer somalilan ay ka heli doonaan mashruucaanayto leh la dhisayo sidaa waxaa muuqatay inuu madaxweynuhu uusan waxaasoo dhan u dhaganuglaynba ama oon dhegaysanaynba nin yara meel ku qafilan tala meel iga soo go'day ayuu u ekaa markaan la doodno oon ku niri bal annagu dad ganacsata aanu nahay dhisaya shaqo horumar waddanka u keenaysa wuxuu ka foqi waayey ama uu ku dhegayba bal intaa yartahay kala guurkaana wax walba idiin dhammaynayeen bal isuga madaxweynaha markuu idin yeedha siilaayey adiga iyo injineeradii caddaanka ahaa ajnabigii ma keligii baa la kulanteen mise kulanka cid bay idinku wehelisay maya markaas shirkaa waxaa ka soo qayb galay madaxdii ugu sarreysay xisbigii kulmiye oo la oran karo waxay ahaayeen rugcadaagii siyaasadda ee xisbigaas kulmiye talada raggaas waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka zaylici baa ka mid ahaa madaxweynaha hadda talada haya muuse biixi baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa maxamuud xaashi waxaa ka mid ahaa maxamed cabdulaahi omar oo markii dambe noqday wasiirka arrimaha dibadda waxaa ka mid ahaa xirsi oo markii noqday wasiirka madaxtooyada waxaa ka mid ahaa marwada madaxweynaha oo iyadana goobjoog ahayd oo shirkaasayto khidmad wanaagsanna ka samaysay markii gogasha laysugu yimid dhinaca iyagana waxaa ka socday injineeradii farsamo yaqaanadoo dhan faransiis iyo ingiriis iyo jinsiyado fara badan isugu jiray afrikaan iyo soomaali kaloo injineera waxaa kala socday maaragtay odayaashii dhaqanka ee magaalada berbera sida caaqil sadiiq oo kaleeto rag badan oo saxaafadda ka socday sida farxaan xajaali oo kaleeto iyo milkiilaha howlkeen raggaas oo dhan baa marka waxa waaye gogasha fadhiyey oo meel qarsoodiya may ahayn imise casho ayuu madaxweyne siilaanya waqtigaa idiin qabta markuu leeyahay anaa hawsha idiin dhammeynaya 30 casho ayuu dalbaday 30 maalmood wuxuu yiri aniga idiin yeeraya wax idinka halaabay doonaa ma jiraan wax walbana si fiican way ku dhamaan doontaa marka waxaad yeelaysaan igu sharfa xilliga kala guurka in aad fursad yar siisaan waanu sharafnay madaxweynihii waa soo dhaweynay waxaan u sheegnay inaan taladiisii qaadanay maadaama hadda aanu doonayn annaga iyo isaga markaa inaanu iska hornimaadno laakiin madaxweynuhu waa nooga baxay ballantii soddonkii casho wuu dhammaaday waxay ahayd inuu warqad marti qaada aniga iyo injineeradii shaqada ila waday uu dib ugu soo diro ma uusan soo dirin mana dhicin inuu soo diro markii la gaaray muddo 60 casha oo aanu jawaab ka weynay ayaan anigu warqad u qoray warqadaasaan u diray oon leeyahay madaxweyne waataanu sidaa ku ballanay maxaa caqabada oo hortaagan inaan shaqadaydii dhammaystiro madaxweynuhu jawaab uu soo diray isagoo soo marinaya xogeyntiisii gaarka ahayd xirsi oo la leeyahay warqadaadii aad soo dirtay waanu helnay laakiin si aan go'aan uga gaarno oo martiqaad aan kugu fidino waxaan kaaga baahannahay sharciyadda aad u haysato inaad dhisto keebalka kale aragtay markabkii dhisayana markaasuu badda kusoo jiraa wuxuuna usoo socdaa inuu ku xirto dekada berbera shaqadana ka bilaaba injineeradii horodhaca u ahaa oo u diyaar garoobi lahaa ama diyaarin lahaa hawsha laga qaban lahaa markabkaasna waa kuwii berbera joogay oo siilaanyo shaqada ka joojiyay
madaxweynihii markaa warqadda markana loo soo diray oo uu leeyahay bal iisoo caddeeya milkiyadiinni iyo waxaad haysataan ayaanu u jawaabnay oon ku niri de sidaas sharciyadda waa tanaa xuquuqdaydu waa tanaa wax walba dawladdu naga rabtay iyo kulli intaasoo lacagi waxay oo dhan baanu dirnay muddo ka bacdi ayaa madaxweynuhu noo soo jawaabay jawaabtu uuna siiyeen waxay ahayd 3 su'aalood buu na soo weydiiyey su-aasha ugu horeysa sharciyadiina soo gudbiya tartan baa la gelayaa dib baana loogu noqonayaa wixii sharciyadii hore loo bixiyey maalintii dambana madaxweynuhu digreet ayuu soo saaray oo uu leeyahay mashruucii cableka waxaanu siinay shirkadda Somcable. warqadda aad hadda xusayso qoraalkeeda waxaa iska lahaa Dr. Axmed Xaashi Nuur wasiirka dambe oo xilkii kala wareegay ama lagu bedelay wasiir Cabdirasaaq. warqadaasayto wuxuu u qoray shirkadda ama bahdii isgaarsiinta ee Easy Cable. wuxuu kaloo wargelin siiyey general managerkii Djibouti Telecom oo ku wargeliyey oo uu leeyahay ilaa haddana ma aqaan sabab uu ugu wargelinayo waayo Djibouti Telecom waxay ahayd shirkad aanu iskula jirnay consortiumka Easy shirkadaha bahdaas isku kaashatay inay dhisato keebalada saamiga ay ku lahaayeen Djibouti Telecom mid leeg ayaa shirkadda Dalcom ay ku lahayd marka niman wada shaqayn ay ka dhaxayso ayay ahayn Djibouti Telecom. wuxuu markaa wasiirku warqadiisaasayto uu ku qoray wuxuu xusay inay hoosta ujeedada warqadaanayto loo qorayaa inay tahay arrinta ku saabsan shirkadda Dalcom. wuxuuna ku tilmaamay inaysan shirkadda Dalcom haysan wax xuquuq ah ay uga shaqayso geyga Soomaaliland. dhab ahaan waxaa xusid mudan in la ogaado xaqiiqada dhabta ah ee ku wajahan sababta keentay in internetka Somaliland oo leh baddaasi dheer Djibouti uga yimaado isla markaasina daafta u soo maro iyo waxa ka dambeeya amaba sababay in Somaliland iyo Djibouti warqado u qoraan dunida si aan berbera internet loo keenin. Hargeysa ayaanu ku soo laabanay waxaanu raadinay Dr. Axmed Xaashi Nuur oo ahaa isagu mas'uulkii warqadda Djibouti xigatay ee sababtay in laga hor istaago Dalcom isgaarsiintii nadka ay berbera keeni lahayd. waxaad ahayd wasiirkii boosaha iyo isgaarsiinta ee xukuumadda Axmed Siiraayo waxaa jiray heshiis xukuumaddii Daahir Riyaale la gashay shirkaddii isgaarsiinta internetka ee Dalcom. heshiiskaas wuxuu ahaa in Somaliland la keeno adeega internetka fiber optic berbera ayaana qorshuhu ahaa in la keeno oo berbera noqoto extensionka bariga Afrika internet. sidoo kale Axmed Xaashi waxaa qorshaha shirkadaasi sida heshiiskeeda ku qorneyd oo dabcan adigu hayso uu ahaa in berbera noqoto hoyga tiknoolajiyadda ee mantaqada. heshiiskaas waa diideen maxaad ku diideen ama kaga hor timaadeen? waxaa ka mid ahaa runtii horta aniga iyadoo saa iga horreysay oo liisan yaroo temporary la siiyay iyadoo haystaan meesha taagan oo liisigana u dhacay. waxaa ka mid ahaa shirkadda waxa ku qoraa 5 nin baa lahaa shirkadda. 5 nin innaga haddaynu reer Somaliland nahay isku wada ilaa laascaanood ilaa iyo saylaco nin bay naga jiray dukumentkeediina waan hayaa. de markaa taasaa qodobada waxaa ka mid ah dee wax shirkadda innagu aanu leenahay baan ahaynba marka horeba. Axmed tiknoolajiyaddu hayb abtirsiimo iyo qabiil ay ku abtirsato midna ma laha. sidoo kale saldhigga ugu weyn ee shirkadaasi waxa uu noqon lahaa magaalada berbera. taas beddelkeeda shirkadda Dalcom waxaa waraaqihii Daahir Riyaale ogolaanshaha ku siiyey ku qornayd Somaliland Dalcom. waa maxay sababta aad ku diiday bal bulshada u cadday message tani Somaliland Dalcom ku qornay? Somaliland Dalcom ma qoray Somaliland Dalcom ma qoray Somaliland ma qoray
aan ka imaado xadhiggii shirkadda somcable ee aad kootada ugu xidheen wuxuu ahaa inay berbere ka soo jiito iminka axmed jabuuti ayaa laga keenay maxaa isbedelay maya ma ahayn kuma qoray sharcigu berbere laga soo jiido wuxuu ku qoray in badda Jabuuti laga soo jiido oo berbere yimaado maamkii aan waan hayay ilaa wali maamkeedii Jabuuti markaa berbere xaqan ka soo galo ka Jabuuti keeda markuu saylac joogan xagga Itoobiya oo qabto kan berbere markaa inuu sii socdo Indian Ocean ka raaco ilaa koonfurta saas ku qoray laakiin inuu berbere toos kaliya uga yimaado ma ku jirin waxaa igu maqaal ah in saamileydii reer Somaliland shirkadda Dalcom ku timi oo ay kaa codsadeen Axmed Xaashi Oday inaanad mustaqbalka berbera meel kale u loogin toodana aan dhaafinin yaa kuu yimi mase jirta inay kuu yimaadeen labayna ma yimid labadana ma saaxiib oo reer Somaliland waxa la igu yidheen waxaa soo nahay caynkaas oo waliba niman aad saaxiibnay maalintii la igu macaawiyo arrintaas jirto waxaan ku waqtiisii marka waa baanay marka ninka igula hadlay ilaa waxban ku lahaa liiska ka waay maalinta ma sarna Axmed oo rano waxba kuma yeelan baan ku meesha marka isagu si khalad ah bas uu dano fahmay muddo badan ma noo wada hadal qoladii kale ka dambeysana anoo taa hore qaba bay yimaadeen in aad saaxiibno kamidi wuxuu igu Axmed markii dambe nu sacafanay wuxuu Axmed oo maalinta waji xun baad ugu egtay ugu waa runtaa baan ku dhaana waa ka marxaati furay ma garatay marka runtii aniga labada qof ee yimidna saddex qof ee yimidna waxaan ku qancay inaanay ku jirin horta meesha liiski hatta haday ku jiraan ma oran kareen mid sidin ma oran kareen maadaama oo xukuumaddii daahiriyaal shirkaddii Dalcom kooto ugu xidhin adeegga internetka maxay idinku kalifay inaad adeegga internetka oo dad tiro koobaniba heli karaan ama awood u heli karaan isgaarsiinta inaad 25 sannadood kooto ugu xidhaan internetkii ka Axmed Xaashi kootada fikir noocee ayaad adigu ka aaminsan tahay يا رب قطعنا ما نجيب يعني هوش نود لما تقول لي شيء هوش سعته أيام نور تقلق كمان أنا بدنا كمان نصير هاجي نقول هذا أنا شقة بلعبنا وقت تجي الله حرام أنا وقت السنة إما كذا من تاج السنة si ay u fahmaan shacabku qiimaha ay leedahay saraynta sharciga iyo waxa dastuurku u yahay heshiis bulsho intaynaan halkaa ka gudbin kooto ma xalaal baa sharciyan qof iyo qaran iyo mayse dan u tahay sharciga iyo qof kase keebaa sareeya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah xeerka ama heshiiska dadka reer Soomaaliland samaysteen ay ku asteeyeen sida uu noqonayo mabaadi'da ku shaqeynaya dal ahaan guud ahaan haddii tahay siyaasad dhaqaale sharci cadaalad iyo difaac iyo nabadba wuxuu sheegayaa in dhaqaalaha dalku uu ku salaysan yahay mabaadi'da suuqa xorta wuxuuna waajib kaga dhigayaa dawladda Soomaaliland inay dejiso siyaasado iyo hanaano mar walba lagu hubinayo in suuqu nooc doonaba noqday oo ahaado xor waxaana fiiska leeyahay free trade oo ah in tartan wax la yiraahdo jiro suuqa xorta wax lagu cabiraa inuu jiro oo xudun iyo bartilmaameedu yahay tartankuna uu ka dhaxeeyo cid wada qabanaysa adeeg ama shaqo ama hawl ganacsi ama wax soo saar ganacsi isku mid ah qabanaysa inta ka dhaxeeyo ayuu doonay sababaha taa loo sameeyana waxay tahay in laga cararo sida dastuurka ku qoran in dhaqaaluhu noqdo yahayntu mid ku ururta gacmaha dad yar oo ay tanaado oo dabeedna waa abuurmo kala fogaansho bulshada u dhaxaysa waa abuurto in yar oo taajirto tanaada iyo dadka intiisa badan oo ku noolaata nolol liidata oo aan dhaqaalahayn aan lahayn waxaana la tijaabiyey boqolaal sano oo dunida maanta shaqaynaysay in dhaqaalaha ku salaysan monopoly ama in qof koox loo xiro hal ganacsi oo nooc doona ha ahaadee inuu keeno burbur dhaqaale inuu keeno waqtiga dheer una sidoo kale abuuro wax loo yaqaan cadaalad darro bulsho oo bulshadu bilowdo inay u aragto in qof dhiig miiranayo dabeedna ugu dambeynta iska hor keento bulshada iyo dawladnimada laftigeeda iska hor keento oo kacdoonada dhaca qaarkood waxa dhala cadaalad darro dadka xagga dhaqaalaha ay ka dareemaan markaasi waxyaabahaas oo dhan looga hortago nidaamkeena dawliga wax ku salaysan soo qaata haddii tusaale ahaan qof loo xidho adeeg waxa qofkaasi uu bilaabayaa kow inuu dadka ku qaaligareeyo adeeg wuxuu og yahay in aan cid kale oo qofkii ka doonanaya aanay jirin ku qasban yahay mar walba inuu adeeg kala soo doonto marka labaad tayadii waa xumaanaysa oo qofkii xil iskama saarayo lacagtiisa ma gelinayo si uu tayadiisa kor ugu qaado sababtoo ka tayada xun baa qofka ku qasban yahay inuu isticmaalo
haddaad eegtid sanadooyin ka hor habkeena isgaarsiineed isbedelka lixaad kalihi ku yimi wuxuu ku yiminayay mar walba tartanka ka dhexeeya shirkadaha oo shirkad waliba sida iyadu dadka usoo jiidato in tayada telefoonka lagu hadlayo mobilka lagu hadlayo noociisa ay kor u qaadaa si qofku ugu xidhnaado ilaa ay gaadhay in mobilkii noqdo midaad xitaa lacag ka isticmaali kartid oo kuu fududaado adduunyadaadi oo dhan kusoo koobo hindisahaas ama innovationkaasi ma yimaadeen haddaan suuqu xor ahayn oo la tartamayn jaaniskaasi koowaad waxaa jabuuti ku guulaysatay inay hantido fursaddii berbera ka dhigi lahayd aqalka ICT-ga geeska afrika somalilanna ciddii la imaan lahayd waa siyaasiyiintii talada haysaye hirgelinta siyaasad dalku ku hoggaamiyo adeegga internetka ee bariga afrika waxay qayb ka noqdeen hirgelinta hamiga dalka jabuuti dadaarka dheer ku bixiyey sidii ay iyagu u liidhgarayn lahaayeen tiknolojiyadda gobolka waxaana taasi keentay steeshankii berbere bariga afrika waraabin lahaa internetka in lagu beddesho qol yar oo somalilan loogu dhex sameeyey xarunta jabuuti internetka ka siisa dalalka aan badda lahayn wasiir axmed xaashi waxa uu wakhtigaasi la geeyey jabuuti wuxuu soo arkay qolkaa yar wuxuu ku doodayaa in jabuuti keliya ka faa'iidayso internetkaas cashuur jabuutina waa la geeyey maalinkaan waa tegey saldhig ay jabuuti leedahay jabuuti waxaa jira waxay ku shaqaystoo dhimar telecommunication incomekeeda jabuuti waxa la geeyey guri kanoo kala leeg oo qolo walba meeshooda ku xidhan tahay etoobiya bay ugu xidhan tahay afrikadan kaloo dhan bay ugu sii xidhan tahay suudaan bay ugu sii xidhan tahay yacni mid walba khadka uu leeyahay ayaa la qolalkaa aniga waxaa la samid bannaan maalinkaas wax walba xidhan oo waa kan waa kii somaliland iyo fire opticooda uu ka dhaqaaqayay marka iyadu cashuur bay qaadaysaa jabuuti cashuurtaasay doonaysaa laakiin wax interfession oo ay ku leedahay ma jira baa lagu maalintaan maanta runta aynu ku soo dhowaan jabuuti adigoo wasiir reer somalilan ayaa loo arkaa inaad toos u hiilisay wakhtiga inay xaqa berberi lahay jabuuti qaadato waxaad jirtay warqad aad qorto oo jabuutina is-hortaaggii telcom iyo dacwadday wada galeen ay adeegsatay warqaddaa waxaad u dirtay oo ku socodsiisay shirkadda xarkaha ee isdiisay isla warqaddaa xaqa shirkadda dalka lagu duudsiyey waxaad kaloo ku socodsiisay jabuuti axmed warqadda sheekada adu markee dalkan baa tii waxay ku dheerantay su-aala intaa ka badan eegada ma runta ayaa tii maymay waxaas waa internal nidaam wasaareed bu ahaa ka biliis take out intaadeenan sida aan moodayba dee ugu yar noqon weydaniyo may waa warkii imika waxaan si cajalada kaa masaxa waxaan cajalada kaaga masaxaa si aan bulshada meesan adigu warsanaysaa waxa weeye waa si yar hoos oo personal interest adigu warsanaysaa ana dan qaran baan moodaya adiga warsanaysaa axmed dan qaran maxaad u taqaan warqadaan intee loo qoray TV-da lagu warqad maxay kaaga ku gubaysaa waqtigeedu uu dhamaaday dawladeedu way dhamaatay hadda xafiiskayga laga xaday anigu markii baan jeclay hore la xaday laakiin markii dambe waxay noqotay ummadooda si aynu barnaamijkeena baaristaa u sii wadano intaynaan u gudbin shakhsiyaadka kale ee xogahani khuseeyaan ama aynu wax ka weydiin doono baaritaanka barnaamijkan shirkadda telcom oo sida idiin muuqata ay shareholders ka ahaayeen ugu yaraan 3 qof oo reer somalilan ah maxamed axmed jaamac waxa uu ka soo jeedaa isagu soomaaliya garoowe ama muqdisho kay doontaba ha ahaatee shirkadaas waxyaabaha xukuumadda Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Siinaay oo cuskatay waxay ahayd inay tahay shirkad ajaaniba hadiiba tiknoolajiyada ama isgaarsiintu ay tahay hayb iyo qabiil ayaa waxa isweydiin mudan sababta shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo leeyahay hal qof oo Soomaaliland u dhashay ay uga hawl gasho ama taawarada iyo isgaarsiinta internetka iyo telefoonada ay ugu gudbisay garoowe gaalkacayo jubbooyinka ilaa iyo muqdisho tiknoolajiyadu iyo maalgelinteedu midab ma laha qabiil ma laha diin ma laha jinsiyad ay ku abtirsato oo leeyahay jinsiyadaas ay ku abtirsataa ma jirto laakiin waxa ilaa hadda la garan waayay
madaxdii u dhalatay inay garan waayeen muhiimadda dhaqaale, midda istiraatiijiyad, midda siyaasadeed iyo midda bulsho oo ay leedahay inay berbere noqoto meel infrastructure-ka ICT-du uu ka hana qaado. dadweynaha xogahani ka daahan yihiin laftoodu wax sawirax kama haystaan tiknoolajiyadda, waana sababta iyana sii sahashay in lagu qanciyo shirkad hebla Somaliland lagama laha ama waxa ku jira qof dhashay magaalooyinka Garowe iyo Muqdisho. sidaasi darteedna shirkadda Djibouti Telecom Somaliland ku keentay internetkaasi iyagoo isticmaalaya magaca Sam Cable oo bulshadu aaminsan yihiin inuu mulkiyadeeda leeyahay hal ganacsade oo Somaliland ka soo jeeda dhalasho ah. taasi waa waxa loogu yeedhayaynu oran karnaa government. hase ahaatee kolkaad ka timaado siyaasiyiinta Somaliland ee Djibouti qaybta kala qaatay fududaynta hawshaasi iyo ganacsatada laftoodu weerka u xidhay, waxaa meesha ka saaraysa tani waa caddaymaha lahaanshaha internetka Somaliland u qabto in dalka laga leeyahay. waxaad booqataa bogga shirkadda Djibouti Telecom, halkan akhri Djibouti waxay internetka u sii gudbisay Somaliland iyo Ethiopia, iyada lafteeda ayaana maalgelisay labadaasi mashruuc oo ay Djibouti ugu kala magac dartay Djibouti Ethiopia iyo Djibouti Somaliland. kadib kolkii isku daygaasi lagu guuldarraystay in berbere laga hirgeliyo, shacabka Somaliland ay weli ka cagacad yihiin helidda internet noloshooda wax ka bedela. waxaa sii xoogaysatay baahida internetka fiber optiga dalku u qabo, waxaana xadhigii Djibouti si toos ah qayb uga noqday suuqii qaaliga iyo awood yarida ahaa ee internetka. mar kale ayaa waxaa bariga dhexe ka onkoday fursaddii labaad ee Somaliland ku heli lahayd adeega fiber optiga oo isagu isku xidhaya bariga dhexe iyo Afrika. waxaa curatay niyaayiradii berbera kaga soo kaban lahayd hantaaqadaasi hore. dabayaaqadii sanadkii 2015 ayaa waxaa Somaliland heshay fursadda ah in adeega casriga ee fiber optiga xadhig caalami toos berbera u yimaado. dalka Cumaan wuxuu ka mid yahay dalalka xadhkaha ugu badan ee fiber optigu ay maraan. shirkadda isgaadhsiinta sandaladda Cumaan ee magaceeda loo soo gaabsho Cumaantel iyo shirkadda isgaadhsiinta Somaliland ugu tunka weyn ee Telesom ayaa galay heshiis ka dhigaya baxwada. Cumaantel waxay ku dhawaaqday inay dhisayso khadka fiber optiga ee badda hoos mara, kaasi oo isku xidhaya adduunka intiisa kale iyo Somaliland, isla markaasina loo sii gudbi doono ku talagalka dalalka aan badda lahayn ee ay ka mid tahay Ethiopia. waxaa si rasmi ah shirkadda Telesom u gashay heshiiskaasi. mashruucaasi oo la yiraahdo The Gulf to Africa G2A ayaa ah kan isku xidhaya bariga dhexe, Afrika iyo caalamka intiisa kale, iyadoo laga anbaqaadayo baahiyaha qaaradda Afrika ee internet xawaarihiisu sareeyo. Telesom waxay ogolaansho ka heshay waqtigaasi xukuumadda Somaliland, kaasi oo ay ku hawlgashay. sanadkii 2016 waxaa bilaabmay sahankii xadhigaasi berbera lagu soo gaarsiin lahaa, oo muddo 6 bilood ah khuburada dunida u qaabilsan dhigista xadhkaha badda hoos mara ay ka shaqaynayeen qorshaha dhigista xadhigaasi, dhinacyada ilaalinta ammaankiisa, xanantirka dariiqa badda hoosteeda ee uu berbera u soo mari doono, iyo waafajinta navigationka ama mashruucda badaha. waxaa kaloo la gudagalay dhismihii stationka xadhigaasi ee berbera, waxaana soo dhammaaday sahamintii. magaalada berberana waxaa soo gaadhay maraakiibtii caalamiga ahayd ee shaqadaasi fulinaysa, halka markabkii xadhigaasi dhigayeen uu soo dhex jibaaxayay badweynta. mar kale waxaa aloosmay dagaalkii ka dhanka ahaa siyaasadda iyo dhaqaalaha Somaliland, waxaana wejigani midkaasi hore kaga gadisan yahay.
mashruucan xukuumaddii fasaxday ayaa u tafaxaydatay isna joojintiisa. aad ayaad u mahadsan tahay wasiir walow ay ka habeeyeen xarko hore oo wasiirada aad ka mid tahay 27-ka ee soo maray wasaaradda la hor istaagay waxaa jirtay waqtigaa xariga G2A oo uu berbera yimi maraakiibtii timi shaqadii ay socoto xarigaasoo shaqadan isgaarsiinta Telesom waday wasiir shaqadii iyo maraakiibtu wado ayaa waxaa xilka hal mar laga wada qaaday adigoo ahaa wasiirkii boosaha iyo isgaarsiinta Maxamed Jaamac Abgaal iyo taliyihii ciidanka ilaalada xeebaha xaqiiqatan dadku waxay ka dheregsanayeen arrintaasi ku wajahnayd G2A iyo qaababkii loo joojinayay aan soconin bal ku soo dhawow sababta ma jirtay wada hadal in ka horeeyay xilka qaadistaadii oo ku saabsanaa madaxweynaha iyo adiga idin dhexmar markuu yimi markabkii berbera soo gaaray dabcan sidoo nidaamku hadda kadib la soo xiriiray ilaa waa markaba meeshuu soo taagay dabeedna qoladii dekada ayaa waxay yidhahdeen dee hawshaas la qabanayna abuu markabkii waraaqdeediina uu sitaa waa tu sharciya dabeedna waa shaqadoodii way bilaabeen madaxweyne wuxuu yidhi hawshaasi hadda joojiyo ka noqo dee maanta ereyadaan kaga noqon lahaa garan maayo marka adaa iga sarreeya madaxweyne هذا ورقة كنقو طبعا ده مركا وأعرف فل جدي مدحون كواسيس يحقون وقت كنقو لسه ولي بس بعد من ورقة كل الدهور ما يروتها ورقة ده أتقصته واحد سوسي نساك سي بس سوسي نسا مركب قاضي قرصة شغلة يسمع إمك ولا الشوتية مرة بعد بكو علي مدحون مرة هذا يجابون هاوش أسوي يعني أريد كقولي لها مات مدحون ويقول عرصتها شرفت قرنك يا تهيدا مدنا با يستاهل ملاكم معها ما يود كان يقول سوي هلكا مركي مرسو دي امر كي مدحوينها يا ماشي يا سما انا دي وحوان الى شن يا دي دلك واحد سيدي ملها مامول خان اركاس دو وير فرحيه وان marka go'aan kaygii wuxuu noqday inaan anu ka noqon anigu kan noqon waa ku adkaystay dabeedna madaxweyne laakiin kuma aan hortiisa maya madaxweyne ma rabo waa ka soo baxay laakiin waxa shaqadii hawsha waxaan ka qabtay ma jirin saddex casho markay taagneed runtii markabkiina joogo ku shaqeynaya marka shaqadii wado ayaa madaxweynaha iyo wasiirkii madaxtooyada iyo Telesom iyo yadee habe arrinka ka wada hadlayay taa wada hadal baa socday yaa waxa la go'aamiyay shaqadii ku socoto saddex cashar waa shaqeynayay in shaqadii sidii lagu dhameeyo madaxweynaha go'aamiyay dadkii talaadeen iyo shaqada loo wadaxay anu markaa kuma jirin laakiin way dib ugu mahsan noqon ismaana naarig dabeedna taa markii la go'aamiyay caawa 12kiina ana xilkii laga qaaday waa sida dhabta wuxuu dhacay way طبعا حريقا فايبر اوبتيكا meel dowdow de halkan loo yacdood wadada Djibouti buu naga soo galaa sidaad sheegaysa de berberana weynu leenahay oo dawada ka deeni wali kamayna faa'iideysan runtii manuu iman wana wax naga dhiman yani kuma faraxsanaanu inaynu ilaa imika aynaan adeer waxaynu haysanay inaan ka faa'iideysan wali kuma faraxsan runtii haddaba si aan wax uga ogaano xariga kale ee G2A oo isaguna saqiiray kadib markaan muddo raadinaynay madaxda shirkadda Telesom cid aan wax ka weydiino sababaha G2A u qaaday toobiyii qabuuraha xarkaha fiber optica waxaa noo suurta gashay inaanu helo injineer Saciid Xuseen Guuleed oo ka mid ah madaxda shirkadda Telesom ahaana madaxa xarkaha badda ee shirkadda Telesom oo hogaaminaya ka dhawra oo G2A ka mid yahay wareen injineer Saciid ku soo dhawow barnaamijka baadigood aan ku bilaabnay sharaxaad kooban wax naga siisaa mashruuca G2A cabdirasaaq G2A wuxuu ahaa mashruuc marka la soo gaabiyo xurufta G2A mashruuc xarigan badda ee internetka qaada oo ka imanayay waddanka Cumaan
dabadeetna ka degayay berbera gulf to africa ayaa loo soo gaabiyay xuruftan G2A mashruucaasi oo mashruuc weyn oo horumarineed ahaa waxa uu ay shirkadu ay wada hadalkiisa gashay muddo dheer ka hor hase yeeshee MOU-dii ama isfahamkii horreeya waxay saxday 2015 marka G2A shirkadaha ku jiray waxa kamid ahay Telesom waxa kamid ahay Omantel oo Oman laga leeyahay Golis oo Puntland Boosaaso Soomaaliya laga leeyahay waxa kaloo heshiiska kamid ahaa Ethiopia Telecom oo heshiiska qaybta ay ka saxday waxa la yiraahdo subject for approval يعني إني قلوه ذو وزير هذا خردقان أي كحنا إني كقيب هذا لكن مبدئيا حرقة وي كقيب هذا إنه دي 4 وهاي أنا كقيب قاتان لعق ملايين دولار 40 مليون دولار كله بحد حرقة وحوسي ويران 20 ترابايت 20 ترابايت سومال لان كليجت أي قشوها إني 10 ترابايت كسود دجان دانسيرو فوت 10 ترابايت كو قياسه حويان كينيا oo terabytes badan yaalaan wadanka dhan wax 1 terabyte ayuu isticmaalaa marka berbera 10 terabyte la keeno waa fahmi karaysaa marka G2A sidaas waa taariikh ahaan maabka maartay xarkaha dunida ku jira waqti bal tinaan gudbinin muxuu faa'iido u soo kordhinay wadanahan Soomaaliland xariga G2A عشان والله صعطة الميديا كشفتان إنترنت الآن حبيت مش قناة نروشين هذا التلفون تاعي هذا تاعي إيميل لدرو هذا تاعي سوشيال ميديا أو دتوا انترتينمنت يو أقوم كورس يو حياة استعمالها هذا جناس تاعي هذا دولة يو حدود ماركتي سياسة يو ميت جناس يو ميت humanitarian iyo waxaabana waxa socdonami internet bay isticmaalaan marka G2A waxyaalaha uu ka doonaa wax kasta oo macluumaad ku lahaa number 1 capacity aad weyn baan wadanka keenaynay talabaad waxa weeyaan xarig xor ah oo independent ah oo maartay aan consortium wax la yiraahdo lagu dhisay ayuu ahaa oo maartay marka wadanka wuxuu soo kordhinayay shaqaale uu soo kordhinayay wuxuu soo kordhinayay dhalinyarada iyo dadka technology ka shaqeysta inay innovations fara badan sameeyaan internet high speed helaan waxyaalo fara badan buu ayuu wadanka uu soo kordhinayay su'aasha saddexaad xarigii G2A xagee ku dambeysay G2A nasiib darro uu ka soo degi karo waa Soomaaliland waxay ahayd inuu dhamaadkii sanadkii hore uu berbera soo gaaro hase yeeshee arrin la xidhiidha maartay xukuumadda iyo ogolaanshiyaha daraadeed xarigaasi waxaan ku joojinay territorial waterska Somaliland xadka badda ee Somaliland markuu marayo ayaan xariga halkaa ku joojinay ku goynay marka waa yandor laakiin waa maartay mu xargaas mu shaqeynay طبعا عقبات badan bay ka hor yimi caqabadaha xarigiini waxa niman yahay soo kale Boosaaso aan tagnay uu toos uga shaqeynayo internet xawaare sare ee shirkadda Golisii deysay kiinina waxa niman yahay u hirgelinin هذا بربرك الكلوة حاجة جيدة طبعا سيدي شركة دالكم بقى حمر جيدة شركة تيلسوم شركة سومالان اللي قال لي هاي وكدي وانقشن سومالان حدود ديده مالنا مرة عطين تاسك شقيستا مركا ميلا نجينينا دو سومالان كسو دقوا أي بربرة ميلا نجينينا وان كل شيء كرامي شرتو وحيالك لو ديدي أنا وشران وإن عاد لسان كي فرصة معهان إن حرقي مارتي إن ملك للودو ومحاول يرى ma ogtahay in kootada shirkadda Sam Cable aanay ku cadayn waraaqdii madaxweyne Siilaan ee shirkadaasi ugu ogolaaday
xadhigga badda hoos mara ee fiber optiga oo ah tan halkan adinka muuqata ma og tahay in xeer number 50 oo ah xeerkii isgaadhsiinta Somaliland ee 2011 in aanay meel laba kaga oolin wax koota ah oo samkayba loo xidhay sida mar kale ku cad waraaqda madaxweynaha wuxuu bixiyay ogolaansho xadhigga badda ah waxa isweydiintu tahay samkayba xadhig badeed ayay keentay mise xadhig berri oo Somaliland waa landlocked sidee bay ku dhacday in xadhigga badda loo xidho muddo 25 sannadood ah iyadoo waxa kaliya ilaa maanta ay ka ganacsato shirkadaasi yahay xadhigga berriga isla markaasina shirkadihii kale ee berbera dunida ka dabageyn lahaa xadhkahoodii sabab lii ugu xabaalan yihiin biyaha hoostooda waxa aan xaqiijinay in dhammaanba shirkadaha waddanka iyo gebi ahaanba cidda kaliya ee waddanka Somaliland dunida ku xidhaa inay tahay shirkadda Djibouti oo leh in ka badan 7 xadhig badeed haddii hal mar uu istaago xidhiidhka Somaliland iyo Djibouti ama uu xumaado dhammaan shirkadaha waddanka ka hawlgala sida Telesom, Somtel iyo Samcable waxay ku xidhan yihiin ama adeegyadooda telefoon iyo internet u mara waa Djibouti suurtagal ma tahay in Somaliland ay hal mar hawada ka baxdo miyaanay xaqiiqo aan la iska idhatiri karin ahayn inay biyo kama dhibcaan tahay in hal mar dhammaan ganacsiga Somaliland amniga dalka waxbarashada xiriirka dunida iyo wax kasta oo dunida isku xidhaaba uu hal mar istaago aan dibadin xasuusiye waxa aan fogeyn markii sanadkii hore dalka Soomaaliya xadhigga tage ee iisay uu jaray markabku waxa xamuulka qaada muddo 3 toddobaad ah ayay Soomaaliya hawada ka maqnayd waa 12 maalmood maxaa dhacay dharaarahaasi oo go'ida xadhiggaasi sababay waxaa ka qaxay dhammaanba dadkii hay'adaha samafalka ka shaqaynayay kuwii ammaanka xawaaladihii ayaa istaagay bangiyadii baa qafilka loo taagay shirkadihii diyaaradaha allow sahal galay ganacsatadii waaweyneyd ee hantidooda dunida iyo dalka u kala gooshisay ayaa ahi daaqad walba uga soo galay hargeysa ayay u soo qaxeen badhkoodna Kenya waxaa xidhiidhku u go'ay xataa madaxtooyada looga taliyo dalka Soomaaliya ee fiila Soomaaliya khasaaraha xadhiggaasi dalka Soomaaliya ee maalinlaha ah 3 toddobaad waxaa lagu qiyaasay inay maalintiiba 10 milyan Soomaaliya khasaartay maxaad fili kartaa haddii Somaliland hal mar hawada ka baxdo shirkadda maalgelinta dekadda berbera ku hawlan ee DP World ganacsigeedu inuu ku tiirsan yahay khadka internetka oo uu Djibouti maro iyana ma ogtahay imisa sannadood ayay suurtagal tahay inay Somaliland hawada ku soo noqoto ama hesho khad kale oo dunida ku xidha halka ugu dhowse ma ogtahay ay khad ka heli kartaa Somaliland hadiiba masiibadaasi haleesho inay tahay Boosaaso iyo Muqdisho waxaa xusid mudan in halista kaliya ee ay leedahay ku xidhnaanshaha hal meel aanay ahayn in hawada laga saaro dalka total outage or blackout laakiin waxa taasi ka halis badan inay tahay dhammaanba isticmaalka xidhiidhka isgaadhsiinta ee dalka ay sameeyaan ama adeegsadaan shakhsiyaadka shirkadaha ganacsatada siyaasiyiinta iyo madaxda oo uu xataa ku jiro madaxweynaha dalku inuu maro waddan kale taasi oo ay suurtagal tahay inay xidhiidhkaasi loo adeegsado qalabka lagula socdo laguna samayn karo fistropin isla markaasina aanay jirin cid ka badbaadi karta madaxweyne ilaa shacab xadhkaha G2A iyo EC haddii ay maanta shaqaynayaan dakhli intee leeg ayaa ka soo geli lahaa Somaliland maxaa dalka kaga baaqatay dakhli cashuureed horumar nololeed shaqo abuur hal abuur hindisayaal iyo hodantinimo u xilashadee in badan oo adinka mid ah waxa laga yaabaa inay aad uga xumaadaan ama aad dibsataan in dad muwaadiniin ah ay lacag malaayiin ku khasaaraan oo xadhkahoodu badda ku xabaalan yihiin ama hantidoodu xeebta berberi aasto laakiin waxa ka sii xuntaasi oo aanad ogeyn boqolaalka milyan ee dollar ee lagu maalgelin lahaa Somaliland ee iyagu ka baaqday waxa taasi ka sii daran maaha xadhkaha ka baaqday berbera iyo G2A hase ahaatee waxa jira tobaneeyo xadhig fiber optic oo iyaguna qufulka berbera ku jabsan ay uga dhigan tahay weysha gowrac dibuha ku quustay waxaa ka mid ah xadhkahaasi berbera aan indhaha siin karin ama soo haweysan karin xadhigga daar Djibouti Africa Regional Express wuxuu u sii gudbayaa qaaradda Yurub xadhigga daar
oo isku xidhaya jabuuti ilaa tansaaniya oo mari doona muqdisho hase yeeshee shirkadaha waddaniga ahi ay ka maageen inay maalgashadaan taasoo sababtu tahay berbera haddii aad ku ogeed qabrigii jacaylka waxay noqotay qabuurihii xadhkaha internetka iyo maalgashiga waxaa ka mid a xadhkahaasi isaguna xadhigga Africa One oo ay ku jiraan waddamo badan iyo shirkado waaweyn oo caalamiya sida Saudi Telecom, Egypt Telecom iyo kuwa kale wuxuu ka degayaa muqdisho berberana indhaha oo ay siiyaan iska daaya uma soo hanqaltaagi doonaan waxaa ka mid a xadhigga BIS oo ay dabada ka riixayaan dowladda China oo ku xidhiidhsan projectka ama mashruuca loo yaqaan Silk Road wuxuu ka degayaa Jabuuti dekeda yare Hobyo tan Kismaayo muqdisho iyo Mombasa Kenya sidoo kale berbera isna nafsada ma siin karayaan waxaa ka mid a xadhigga Mercury oo shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay Cumaanta Itisaalaad iyo kuwa kale ay ka leexdeen berbera sida idin muuqata waxaanu tagnay berbera oo aanu booqanay labada station ee G2A iyo EC oo aad aragtaan inay haawanayaan waxaanu kaloo noo suurta gashay inaanu tagno Boosaas iyo Garoowe soona aragno xadhigga magaalada Boosaas ee fiber optiga xeebaha gobolka berbera qatan berbera waxay u muuqataa inay u baxayso heestii ahayd dadkii maaniga ka hadhay Uriga rara